الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينا كحيانك جمهورية سوماليلاند وزيرada madaxda shirkadaha marti sharafta kale mudanayaal iyo marweyn ba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mar labaad waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa oo ugu amaanayaa wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo madaxdiisa agaasimaha guud iyo madaxda kale ee wasaaradda maaliyadda ee inoo soo agaasimay shirkan runtii qiimaha iyo qaayaha badan ee lagaga tashanayo laguna soo bandhigayo tiknoolajiyadda dalkeena waxaan jeclaan lahaa inaan horta in yar aan ka warramo sooyaalkii isgaarsiineed ee Somaliland iyo marxaladihii kala gedsanaa ee ay soo martay sidaan ku wada warhayno waxaan ku bilownay telefoonadan fixed line-ka ah waxa markaa yimi laba shirkadood oo laba technology oo kala gedsan isticmaalayay oo dhinaca mobile-ka ah midna ay analog ahayd midna ay digital ahayd oo anagu digital-ka markaa aan dooranay labada technology waxay ku kala saleysanaayeen waxay ahaayeen European technology iyo American technology way ahaayeen runtii markaanu alifaynay aan shirkadda sameeynay daraasaadkan sameeynay baa noo soo baxay in hayaanka lagu socdaa uu yahay digital-ka dhinaca eenu ahayn analog ama ambiski oo ahaa technology qadiimiga ahaa ee markaa la isticmaali jiray waxa aanu markaa iyadana ku ladhnay internetka waan xasuustaayo waxay ahayd baan u malaynayaa 2000 horaantiisii shirkad Canada ku taalo ay direct la yiraahdo ayaan waxaan ku xidhan fixed line marka internetka la dirayo qararraacdaas guri jiray waxa ku xigtay October 2000kii oo sida shirkaduhu horumarka ay sameeyeen majaalada kale ee ganacsiga horumarka ay sameeyeen oo aan qolkeeda halka ka soo jeeda aan ku qabanay daafurkii shirkadii ugu horeysay ee internet service provider-ka ka noqotay Somaliland October 2000kii ay ahayd waxaanu ka soo qaadanay technology-ga oo heshiis la soo galay ittisaalaadka qayb u lahaa oo la oran jiray Emax waxa ka horeeyay qolo Mareykanka oo aan dib ugu tagay waxaan ku waxaan rabnaa inaanu internet broadband ka iibsano imise iibsanaysaan bay yiraahdeen raaliga noqda waxa la yiraahdaa odayaasha madaxa ka dararaana waxaan doonayaa in jiilkeena maanta fadhiya oo runtii xafladda ciideena u qabanayno aynu rabno berita leaderska iyo ganacsatada inay noqdaan inaan waxooga soo jireenkii iyo taariikhda soo maray aan uga warramo dabadeed hodheer baan fadhinay waxaan ku wiri waxaan rabnaa inaan idin ka qaadano satellite inaan idin ka qaadano wuxuu ugu yiri capacity-ga rabtaan waa imisa conservative waan sir markaa waxba exaggeration ku darina u sheeg waxaan waxa ugu badan qaadan karaa waa 512 kilobytes per second ninkii intuu si aad ay u qoslay buu yiri Cabdikariim darta halka ka soo jeeda laga 2 MB qaadato buu dal an ayad 512 u rabtaa miya marka waxa dhahaayo technology waa wax lagu cusubo isbedel ba iman doona wali dadka iyagu deviceski iyo technology aqoontii wali maanaan soo kabcin kuwii diiday qolada imaaraadkan u tagay waan xasuustaa dhishkan isticmaalay 2.4 meters buu ahaa 256 kilobytes per second capacity aan ka soo iibsanay isweydiintu waxay tahay maanta Somaliland imisa u malaynaysan inay shirkaduhu isticmaalaan marka la isku daro capacity-ga shirkaduhu ay leeyihiin 100 gigabyte way ka badan yihiin oo wax ilaahay lagu mahadnaqo runtii oo aad iyo aad ammaanteeda iyo wanaaggeedana
ay leedahay xukuumadda Somaliland ee Allahu naxariistay oo gundhiga u ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaan xasuustaa 1997kii markan dalka yimi khudbadii uu jeedinayay madaxweynuhu ee marka kaambeenka uu ku jiray ee uu lahaa waxa iman doonta maalin geed wal mobile lagu isticmaali doono runtii may noqonin waan jeclaan lahayn riyadiisi inuu soo gaaro laakiin midhihiisii shacabka maanta guranaya taasi waxay u muuqaan u tahay inaynu isweydiinno maxaa keenay Yurub iyo Maraykan marka la eego tiro ahaan population-kooda iyo dhaqaale ahaan iyo technology ahaan waa isku mid Maraykanna inuu u helo dhowr iyo 10 shirkadood oo multinational maanta oo technology-ga aynu isticmaalayno mid walba technology Maraykan ah Yurubna ay u weydo one single company aan ku shaqaynaynin technology-gaasi jawaabtu waxa weeyaan siyaasadda ay dawladuhu qaataan liberal economy-gaynu qaadanay ayaa inaga inoo fududeeyay technology-gii waxa la yiraahdaa leapfrog inaynu samayno oo aynu ka hor degno oo aynu ganacsatadeenni iyo shirkadaheenni iyo maxaan ku dhahdaa madaxdeenni iyo shaqaalaheenni iyo ardadeenniba ay keenaan in ay isticmaali karaan soona bandhigi karaan hal abuur ku keeni karaan in la keeno technology-ga maanta aynu ku naaleynayno waxa 2003 aanu sameynay 2003 waxaanu sameynay inaanu convergence-kii ugu horeeyay ama isutugitaankii labada technology-yadood ee AMBIS-ka iyo GSM-ka aan wada samayno oo marka H technology ama 2G-gii la abuuro sidaas ayuu dabadeed soo socday 3G-gii 4G-gii markaynu mandaqadan aynu ku naallo aynu eegayno waxaynu isweydiinaynaa halkee baynu technology-ga kaga jiraa services-kaynu samaynaa waxaanu jecel lahay in lagu soo bandhigo challenge-kana halkan ay ka dhalato shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland in ay ka horeeyaan dhinac walba majaal walba marka la eego shirkadaha mandaqadan ku yaala waxa gundhigu ah oo asaas u ah waxa weeyaan horta marka ugu horeysa fawdo kuma abuurnin ee self regulations baa jira frequency-yada ee xiriir baa naga wada dhaxeeya walow wasaaraddu maaragtay aan insha Allah rajeynayno wasiirkeena cusub ee Cabdiwali in runtii roolkaasi mid ka sii weyn aan kala wada shaqeyno waxa jira inay shirkaduhu gudahooda self regulations ay sameeyeen oo mid walba wada shaqeyn iyo xiriir oo meesha uu ka jiro oo aan shay fawdo noqonin marka aad eegto waxaynu maanta taaganahay waxa weeyaan technology-yada noocii u dambeeyay inaynu soo bandhigno wiigii hore wararka waxa lagu soo qoray shirkadda Econet la yiraahdo ee Zimbabwe ka dhisan inay samaysay M-Exchange waa kii inagu 2018kii aynu sameynay waxa halkaasi inooga muuqanaya inaynu dhinac walba aynu ka nahay leading companies-ka dalka iyo mandaqada ka shaqeynaya taasi waxay ku suurta gashay in regulations-ku aanu noqonin mid dabra horumarka shirkaduhu ay doonayaan inay gaarsiiyaan ay gaaraan ay noqoto laakiin mid u sameeya saaxadii lagu shaqeyn lahaa waxa maanta aasaas u ah isgaarsiintaynu doonayno iyo ICT-gaynu rabno inaynu dalkan ka sameyno waa infrastructure-ka waa sameynay alxamdulillah meel wanaagsan u marayaa laakiin wali sidii la doonayay ma aynaan wada gaarin infrastructure waxa base u ahay waa fiber optic in la helo mana suurto galayso in aynu fiber optic-ga cid kale ku tiirsanaano waa inaynu inaga gudaheena isku tiirsanaano oo badda aynu leenahay qaar aynu leenahay ay ka soo degaan
waan ku dheeraaday raalliga noqda shirkadaha isgaarsiinta ama shirkadaha waxaa jira waxaa laga rabaa waxa weeyaan inay iswaafajiyaan 5 shay waxaa laga rabaa saamilihii maalgashaday inay wax u soo celiyaan waxaa laga rabaa bulshada u adeegayaan iyo macaamiishooda inay mar walba ay u soo bandhigaan adeeg hufan oo cusub oo innovations cusub leh waxaa laga rabaa inay shaqaalahooda siiyaan wax wanaaga oo manfaca oo sanadku markuu dhammaado nin walba incentive u noqda waxaa laga rabaa in investment ay ku sameeyaan infrastructure-ka iyo research and development-kooda waxaa laga rabaa inay u hoggaansamaan kalana shaqeeyaan dowladda sharciyada iyo awaamiirta iyo cashuurahooda waa 5 shay oo dhinacna isdafraya dhinacna loo baahan yahay in la waafajiyo shirkadaha ta u taalla ee muhiimka ah runtii waa taa waxaanaanu isleenahay runtii shirkad ahaan waa ka midho dhaliseen maanta haddii aanan wixii aanu qaadnay ee dadka saamileyda aanan wax ku soo celinin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa wax lagu faano waxa kaloo ina qayba oo runtii aan jeclaan lahaa halkan in isdul taago markaynu ka hadlayna ICT-ga marka laga reebo qalabka waxa aasaas u ah waa 3 shay kow maskax tijaariya dadku inay yeeshaan haddii taa la waayo wax allaaliya waxa qalab aynu leenahay iyo waxaynu aqoon leenahay in hagi maayaan waxaynu u baahannahay jiilkeenna soo kacaya caqli tijaariya inuu yeesho shaygan technology-ga ah ee aad samaysay Facebook-ga aad maanta social media waxa maalayacniga ku isticmaalaysa ma ku isticmaali kartaa waxaad lacagna ka samayn kartid bulshadaadiina aad u horumar kartid waa challenge-ka dhallinyaradeenna u yeeleen u baahannahay aanaanu jecelnahay inaanu ka kabno sidii caqliga tijaariya loo keeni lahaa waxay u baahan tahay maamul aqoon iyo hufnaan leh waxay u baahan tahay shaqaale xirfadii iyo aqoontii leh 3 shay ayaa gundhig u ah markaynu eegno mandaqadan imaka aynu ku noolahay sanadkii ICT-gu wuxuu na soo dhaafay 2018kii 3.5 million ayuu u abuuray shaqo cusub ah waa waxyaabaha ugu kabac badan leh ee Afrika imaka ka socda waayo waxa weeyaan in badan oo dalalka Afrika ka mid ahay waxay qaateen inay furfuraan hanaankoodii ganacsi taasoo u suurtagelinaysa cid allaaliya ciddii talent leh inay timaado kayska Rwanda kale aynu soo qaadan xukuumaddu waxay qaadatay iskuulka elementary-ga ilaa jaamacadaha inay dhigto kaabihii xagga tiknoolajiyadda jaamacadihii ugu waaweynaa ee Mareykanka ayaa campuses ka furtay Carnegie Mellon University baa ku leh oo wada garanaysaan jaamacadaha ugu waaweyn Mareykanka ayaa campuses ku leh Rwanda halkeeba laakiin uu qaladku ka jira dawladdu waxaanay way dhistay xirfadii shaqaalaha iyo tacliintii laakiin caqligii tijaariga ah iyo furfurnaantii ayay dawladdu aanay la iman labadana way wada socdaan ma kala hadhaya haddii la doonayo dalin horumar labadaas waa inay isbarbar socdaan waan ku dheeraaday aad iyo aad raalli iga noqda waxaan runtii jecelahay inaan halkan uga bagaadiyo mar labaad iyo mar saddexaadba wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ilaahayna waxaan ka baryaynaa shirkeenana inuu noqdo mid midho dhala technology lagu faano ana inooga soo baxo horena uu inooga soo baxay markaad maanta eegtid siyaasadda ninkii la odhan jiray Gordon Brown buugu qoray waxa ku xusan isgaarsiinta dalkeena buugiisii xusuus reebka ay qoray way ku qoran tahay markaad aragtid majaalka ganacsiga shirkadaha ugu waaweyn Microsoft Bill Gates amaanteena meel walba uu ka sheegay 2 goobood ayuu ka sheegay taasi suurtagal may noqoteen haddaynan environment-kii ama enabling environment-ka ay ku shaqaynaynay aynaan helin waxaan ku boorinayaa xukuumadda inay halkaa iyo meel ka sii wanaagsan ay dhigto waxaan leeyahay technology-gu waa seef laba af leh waxaynu u baahannahay inaynu ka faa'iidaysano waxaan jecelahay inaan kaga baxo 2 example oo ah technology-gu sidii u bedeli karo
ganacsiga mid waxa weeyaan shirkad la yiraahdo John Deere waxay samaysaa qalabka beeraha cagafyada iyo waxyaabaha la mid waa Mareykan markay aragtay shirkadu sida uu isku bedelayo technology ayaa waxay abuurtay inay business modelkeedii dib u eegto oo technology-gu u noqdo udub dhexaad waxay ku samaysay cagafyada biosensors bay ku samaysay sheegaya marka cagafta la dul marinayo in greenka ama maaragtay haruurka inuu yahay iyo inuu yahay maxaan ku dhahdaa wiilka waxa la yiraahdo uu yahay oo kala saaraysa haruurka markuu soo galana ama dalagga noocaas uu soo galo ee midhaha ah inay sheegi karto oil content-ka ku jira iyo sidoo noqon karo waxay siisay waxaana hore farmers ama beeraleydu u hayn waxa kale oo samaysay inay ugu dhajiso tracking devices qalab wal oo beeraleydu ay isticmaalayso haddii laga xadana sheegi karta qalabkaas halku tagay waxay u samaysay platform ay beeraleydu ku wada shirto oo ay isku weydaarsadaan waxyaabihii soo kala dhex maray dalagii iyo waxyaabihii carqalada ahaa iyo fawaaidka ay ka heleen oo iyagoo gobollo kala fog iyo caalamka meel walba aad geli kartid oo aad la sheer gareyn kartid experience-kaaga waxaynu ku doonaynaa qaabka noocaas inaynu technology-ga aynu horseed uga noqono insha Allah tacaala waxaan kaga bixi lahaa sida ay wax fara badan technology u save gareeyo waqti iyo adduun iyo disaster dhici kara intaba iyana shirkadda Mareykanka ah GE la yiraahdo General Electric waxay samaysaa oo ugu weyn waxa weeyaan diyaaradaha mashiinadooda system ay u samaysay iyagana lagu trace gareynayo wax allaaliya wixii yimaado oo dhan ka soo qaad mashiinkii ayaa meel yar halkii insulation-ka dalaacay temperature-kii hawada soo galaysa intaanu ninka bayloodka ay ogaanin in temperature-kii hawada soo galaysa isbedelay waxa ogaanaya xaruntoodii dhexe waxay bangareynayaan sheegayaan halkee ayuu ka yimid maxaan ku dhahdaa leakage-kaas diyaaradda iyadoo ka dushay Mareykan markii Hong Kong maraysay istaagto baadaatan waxa u diyaar wixii yaraa lagu bedeli lahaa maxay taasi ka fogeysay waxay ka fogeysay in routine maintenance check-up-ka waxa la yiraahdo ee dib u eegista in lagu sameeyo iyadoo diyaaradii wixii dhibaato intii ka weyn ay timid kharash intii ka baxay ay timid ground diyaaradii lagu sameeyo passenger-kii laga dajiyay technology-gu faa'iidadaas ayuu keeni karaa waxaynu u baahannahay inaynu dhisno bulshadeena waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha wada qabsano anagu shirkad ahaan diyaar ayaan u nahay inaanu noqono horseede haddii noqoso jiilka soo baxaya ee cusub ee technology-ga maalgashi waxa ay u baahdaan inaan isla barbar taagno tababar inay noqoto waan isla barbar taagana insha Allah aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan ku soo gabagabeyn lahaa waxa ugu weyn ee dawladda lala qaban kara waa e-governance-ka diyaar baan u nahay inaan dawladda aan la samayno shirkadaha kalena waxaan ku boorin lahaa in ay iyaguna waayo public iyo private sector-ka haddaan wada soconin oo ay kala dheereeyaan fahamku wuu kala tegaya marka runtii taana waxaan jecel lahay inaan wasiirka aan ka wada shaqeyno aad iyo aad baan mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh